الكسرة حلبانada wasiirada ergooyinka dawlad goboleedyada haweenka Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed marka hore dhamaantiin waan salaamaya salaan kadib intaanan hadalkayga gelin waxaan tacsi u dirayaa nimankii dhagarqabayaasha ahaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee dugsiyada sare dhamaysay ee xafladda u tagay halkaa inay ku qabsadaan gaar ahaan si gaara waxa ii taabanaya gabdhaha walaalaha ahaa ee 12 jir 13 jir oo markaa dugsi sare ku jiray kuwii laayay naxariislayaasha ahaa ilaahay meel daran ha geeyo gabdhahana iyo ardada aan waxba galabsanna naxariistiis jannaha siiyo waalidkoodna waxaan leeyahay ilaahay ha idinka samirsiiyo intaa markaan idhaahdo marka hore waxaan bogaadin iyo ammaan u soo jeedinayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dastuureynta federaaleynta raalli ahaada intaa kadib halka waa laga hadlay si fiican baa loo hadlay waxaan koodgaraynayaa oon qaadanayaa ereyo ay tidhi caasho geelle oo ahaa isku daalaye maxay noo dan ah waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo dareenkeeda leh waxaa kale ay taabtay ereygii ay ku tidhi carruurteenna yacni Soomaaliya khatarta ay ku jirto Soomaaliya khatarta ay ku jirtaa waxa weeye sida u sheegtay carruurteennii yaryarayd ama xaggaa ha ku dhashaan ama halkaa ku dhashaan waa la kaxeeyey waxaa la barayaa dhaqamo aynaan shaqo ku lahayn waan idhi hadda ka hor carruurtan la guraya waxaan idhi malaha waxaa la rabaa inteennan waaweyn ee Soomaalida garanaysa ilaa ay ka dhammaanayaan in la sugo Soomaaliya inayna cagaheeda isku taagin oo markaa ay noqoto dad aan wax dhaqana oo ka dhaxeeya una jirin oo qaaradaha adduunka kala duwan ka yimaado Soomaaliya in lagu beero Mareykanka melting pot baa la yidhaahdaa oo macnaheedu yahay waa adduunka kala duwan oo dadka yibidoon shaqaba isku lahayn sidaas oo kale miyaa loola jeedaa Soomaaliya waxaan isleeyahay gabdhaha Soomaaliyeed taariikhdan ummadda waxay ku leeyihiin baaldahaba Mustafa Sheekh Cilmi gabay uu tiriyey ayaa wuxuu yidhi dhagxir nin lagu aamini dhif iyo naadir weeye in yarkii loo dhiibaa isagaa dhujinaye maxaa laga dhug sugayaa dhayladaan ku boobne dhabaha iyo laamiga hadba dhinacu yaacne dalxiis dhulkan inaanin dhigtaahayna moode ha la istaba dhaboolaqo balan dhaxalka aragne istaba dhaboolaqa uu sheegay ayaynu ku jirna haweenku kuma jiraan gabaygiisa kolkaad fiirisaan dhagxir nimaad ku aamini dhif iyo naadir weeye waa ragga waxa laga hadlaya waa sax Soomaaliyay anigu waxaan leeyahay oo halkan aynu u fadhinaa maanta waynu fiicannahay leesh waa taariikhduna waxa weeye waxaad shalay samaysay ayay ku bartaa waxaad samaynaysana way ku bartaa waxa weeye
waxun iyo wax fiicanba horey waa u soo aragnay maantana anigu sidaan qabo wax fiican baa inoo bilaabantay dawladdaa bilaabantay waxa weeye inaynu gacan siina weeye waxaa guddoomiyihii dalladdu waa sax dhaliishu way jiraysaa waa in la sheegaa wixii khalada ee muuqda inaynu isu sheegno weeye inaynu saxannana weeye maxaa damani naga dhigay maxaa dulligaydin baday dareenkii maxaa la tegey dunida sow ma aragtaan dadkana sow ma aragtaan bini aadmi baynu nahay waa inaynu dalkeenna nabaddiisa midnimadiisa ka shaqaynaa oo waxa waa maxay dhibaatadayna haysaa anu waxaan qabaa waa hal shay waa qabyaalad la siyaasadeeyey wey dadweynaha soomaaliyeed col ma aha waxba isuma haysto laakiin cabdiraxmaan siduu hadda lahaa waxa weeye waa qabiilkii oo siyaasiyiintu ku tanaysanayaan ood laysku dirayo laakiin dadka soomaaliyeed waxa weeye waa walaalo waa isku mid cadow isuma aha oo daliil cad waxaad hadda arkaysaan dee meel kasta way isugu tagaan dadku way isugu tegayaan waxa weeye wasiirkii ka socday puntland halka wuxuu inooga sheegay ayaa daliil cad u ah inay corner ilaa corner abaarihii kolkay dhaceen ay ka tageen oo puntland meel roob ka da-ay ay isugu wada tageen oo laba isjiidhaysa ayna jirin waa daliil cad taasi dadka soomaaliyeed inuu yahay hal inuu isjecel yahay inuu nabad yahay waxaan isleeyahay innaga siyaasiyiintu inaynu kolkaa ku shaqayno dadkeenna midnimadiisa isu keenistiisa iyo isjeclayskiisa ee aynaan marnaba u kicin marna aynaan u kicin inaynu dadkeenna yacni khilaaf dhex dhigno wasaaraddu hadda arrintan ay bilowday waa bilow saldhig looga dhigayo dib u heshiisiin dadka soomaaliyeed in la heshiisiiyo sida lagu soo sheegayna kolkaa waa qaadanaynaa waan soo dhowaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhowaynayaa madaxweynaha inuu ereygii yidhaahdo waad mahadsantihiin